Arrintan booliska si kastoo ay baaritaan ugu sameeyeen waxa ay noqotay caddeymaha ugu badan in maamadan ay ku tuhmaan in cunugeedii ay dishay. Maamada iyadu dhankeeda waxa ay leedahay aniga cunuganeyti ma dilin. Booliskuna caddeymaha ay cunuga baaritaankiisa marka ay sameeyeen waxyaabaha ay ka arkeen ay noqotay in tuhumo ay ku dhaliso. Su'aalo ay weydiiyeen oo ay ku tuhmayaan xitaa sababta cunuganeyti uu u geeriyooday in maamada ay leedahay. Maamada dhankeeda wax jawaab cada su'aalahaaseti kama aysan bixinin. Ninkeeda dhanka kale waxa uu leeyahay anigu ma aaminsani xaaskeyga in cunugeyda ay dilayso oo waa hooyo wanaagsan. Waqti dheer yaana sugeynaba in cunuganeyti inoo dhasho. Marka ma filayo arrinta sida booliska ay wax u baareen. Booliskuna ilaa haatan waxa ay ku adkeysanayaan anaga baaritaanada aan samaynay kama foga mas'uuliyadda inaan dusha u saari karno maamadan oo aan dhihi karno cunugaaga adigay gacantaada iyuu sababsaday. Qisada muuqaalkan ayaa waxa dhan ku faahfaahin doonaa balse intaan guda gelin muuqaalka mar kale waxaa kaa codsanaya in muuqaalkanita aad like garaysiina share garayso haddii aad ka mid yahin bahweynta nugu xiran nugu soo biirto waad ku mahadsantahay waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan guda galno muuqaalkeena maanta. Qisadan waxay ka dhacday gobol lagu magacaabo Madhya Pradesh ee waddanka City India ka mid ah gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Guna. Waxaan halka City ku noolahay qoys ka kooban aabo, hooyo iyo wiil ay dhaleen. Qaabka qoyskan noloshooda ay u samaysneed haddii aan fiirinana islaanta qoyskan oo lagu magacaabo Alka iyo ninkeeda oo la dhaho Anubam waxa ay isguursadeen sanadii 2003. Qaabka noloshooda ay u midoobeen waxa ay ahayd labadan qof waxa isku soo xulay qoysaskooda wala isku daray sidaasaytii noloshooda ku aas-aasteen. Noloshooduna si caadi ah isaga socotay. Odayga qoyskan oo lagu magacaabo Anubam waxa uu ka shaqeynayay bangi. Islaantana waxa iska ahayd guri joogto. Muddo 2 sano ah qoyskaniti marka ay isqabeenna wax u badan aysan kala helin. Waxa su'aalo badan kaga yimid dhanka qoyska iyo asxaabtoo kale. Su'aasha ugu badan ee la weydiinayna waxa ay ahayd in labadaniti qof la dhaho kale ubad Ilaahay ma idin siiyay oo qoysku wax ma ku soo biireen. Su'aalahaasiti aad ugu soo laalaabtay Alka iyo Anubam waxa ay ku noqdeen in qalbiyadooda xanuun ay ku reebaan. Ilaa heer ugu dambeyn ay go'aansadeen in isbitaal qaybaha taranka oo kale dhowr isbitaal ay la xiriiraan si baaritaano loogu sameeyo talo caafimaadna ay u helaan haddii wax qalad ay jiri karo ama qaabka ubad ay ku heli karaan dadaalka ay sameyn karaan si talo bixin ay ugu helaan. Dhowr baaritaano ay sameeyeen dhaqaatiir badan oo ay la kulmeenna waxa ay noqotay in ugu dambeyn qaabka rajada ay wax ku raadin karaan in labadaniti qof loo tilmaamay in la dhaho qaab bacrimin ayaad sameyn kartaan. Sidaasiitina waa laga yaabaa in rajo ubad aad ku heshaan. Bilowgiina waxa ay noqotay in xoogaha ay ku adkaato islaantan oo lagu magacaabo Alka iyo odaygeeda la dhaho Anubam. Way ka soo fikireen ugu dambeyn waxa ay soo go'aansadeen qaabkaasiti bacriminta ah in ay dadaal rajo ay ku samaystaan si marka haddii Ilaahay ubad siiyana ay sidaasiti wax kaga helaan. Waxaana bacriminta loo sameeyay ay noqotay IVF qaabkaasiti in islaanta ubad loogu beeray. Muddo 7 sano ah oo dadaalkaasiti rajada ay sameynayeen ay ku jireenna waxa ay noqotay in ugu dambeyn ay 2010kii qoyskaniti u dhashay wiil waxaana ay ugu magac dareen Abi. Noloshoodu bilowgu waxa iska ahayd farxad maadaama ay heleen wax rajo waqti dheer ay sugayeen muddo 7 sano ah. Noloshoodu sidaasaytii iskaga socotay. Wiilkoodii waa uu barbaaray ilaa da'aad heer waxbarasho markaasaytii uu soo gaaray. Waxaana ay noqotay in maadaama odayga qoyskan oo lagu magacaabo Anubam oo ka shaqeynaya xarun bangi in la dhahay magaalo kale ayaa lagu wareejinayaa oo magaalada uu deganaa qiyaas ahaan u jirto wax ka badan 150 kiiloomitir. Maadaama shaqada uusan ka safri karin magaaladiisa in magaaladaasaytii kale uu tagana waqti ay ku qaadanayso waxa qoyskaniti ay go'aansadeen in dibi ahaanba ay guuraan magaaladaasaytii kalena ay u guuraan halkaasaytina markaa noloshooda ay kasii wataana. Magaalada kale ee qoyskaniti u soo guureen waxa lagu magacaabaa Bhopal. Halkan marka ay yimaadeenna waxa ay noqotay in qoyskaniti dad noloshii dib u bilaabayo kale ay noqdaan oo maadaama ay ka soo fogaadeen qoyskii dadkii asxaabta ay la ahaayeen oo waqtiga isla qaadanayeen. Waxaana culeysku ugu badan in ay dareento ay noqotay islaanta qoyskan oo lagu magacaabo Alka maadaama iyadu ay noqotay qofka ugu badan ee cidla dareemayo maadaama keligeed guriga isaga sugnayd maalintii oo idin ninkeeda goob shaqo u aadaya bangiga sidoo kalena wiilkeedu uu aadayay goobtiisa waxbarashada
islaantan waxa ay noqotay waqtigaas cidlada badan ay guriga ay ku dareemayso si ay u xaliso inay noqoto in magaalada ay ka baarbaarto goob madadaalo un wax markaasiti ay isku soo madadaalin karto meele ay tegi karto xaafadeeda meel ka agdhow yay ku aragtay meel dumarkoo kale waxyaabo trainino oo dancing oo kale ay ka mid yihiin lagu baro halkaasiti soo qiimaysatay waxaana ugu dambeyn ay u timid ninkeeda iyadoo kala tashanayso ku tiri waqtiga badan ee cidlada guriga aan ku dareemayo waxa aan rabaa ay ku tiri goobta city in aan tago halka city aan isugu soo madadaasho si maalintii cidlada badan aan dareemayo kala maaweelo aan ugu helo ninkeedu waa uu ku raacay wuxuu dhahay okay waa tigi kartaa halka city waqtigaaga firaaqada maalinta isaga soo qaado halkaasay aadi jirtay laakiin waxaa dhacday in islaantaanayti dhaqankeedii isbeddel uu ku yimaado qaabkii u labisanayso kale waxaa dhici jirtay in wiilka iyadu ay dhashay uu xoogaha uusan jeclaysanin qaabka sida hooyadiis ay u dhaqmayso su'aaliyuu ku bilaabay inuu hooyadiis u weydiiyo ku dhaho kale hooyo ma habboonoo kale qaabka adiga aad u labisanayso oo isbeddel yaan dareemaya magaaladanayto cusub marka uu soo guurnay sidoo kale waxaa dhici jirtay maadaama hooyada iska baxayso oo aysan u sheegaynin goobta ay aadayso waqtiga ay soo laabanayso wiilkan su'aalo waxa uu weydiin jiray hooyadiis ah xaggee aadaysaa hooyo goormaa soo laabanaysaa su'aalahaas markii uu ku badbadiyena hooyadu waxa ay noqotay in xoogaha ay aad u dhibsato ay qaabkay ugu jawaab celinaysa xitaa ay noqoto qaab adag wiilkeeda maadaama aysan rabin goobta ay aadayso in la ogaado sidaasitii waxay isaga socdeen maalnimadii ku aadaneyd 14 bisha labaad 2025 islaantan waxaa markaa dhacday in guriga abbaara ay timaado 12 saac iyo 50 saacadda marka ay maraysay maqribnimadii guriga albaabkii soo gargaraacday cidna kama aysan furin waa ay soo gargaraacday cidna kama aysan furin waxa markaa ay noqotay in xoogaha ay istiraahdo qadar daqiiqadaha kala sug waa ay gargaraacday albaabka haddana mar kale lagama furin ninkeedii wacday oo waxaa markaa ay ku tiri wiilkeenii gurigii maanta aan kaga tegey meesheedii aan aaday oo daansinka kusoo baranayay waa aan soo laabtay cabbaar yaan albaabka gargaraacaya oo hadda waxaba lasii maraya 1 saac iyo bar waa lasii dhaafay 12 saac 50 iyo guriga imaaday albaabka aad yaan u gargaraacay xitaa magaciisa anigoo ku hadaaqaayo ima jawaabayo maxaa sameeyaa ninkeedii ku tiri ninkeedan waxaa markaa u dhahay haddii guriga aad u gargaraacday oo aadan wiilkii albaabka uusan kaa furin oo aadan haleeli karin waxa aad samaysaa cidda aan guriga ka kiraysanay gurigooda tag furaha isbeerka ka soo qaado guriga soo fur sidaasay tiri markaa guriga ku gal okay waaya tiri waa ay baxday waxay aaday ciddii furaha ka soo qaadatay oo xilligaasaytina waxaa markaa joogtay islaanta uu qabo ninka guriga iska leh oo ciddaanayti ay ka kiraysteen furahay ka soo qaadatay islaantana waa ay soo raacdaba xaaska gurigii markaasaytii wada imaadeen islaanta ninkeeda guriga uu leeyahay iyo islaantaanayti albaabka cunugeeda uu ka furi waayaba waxaa markaa dhacday albaabka markay soo fureen magacii ku hadaaqday weliba islaantaanayti alka cunugeeda iyadoo u wacaysa gurigii ka fiirisay oo cidna uma aysan jawaabin ilaa iyo heer marka dambe oo ay musqushi ka soo fiirisay musqushi marka ay timidna waxa islaantaanayti lagu magacaabo alka ay aragtay cunugeedii oo meyd ah meeshana dhex yaala islaanta kale ee la socotay ee ninkeeda guriga uu leeyahayna markii ay qaylisay islaantaanayti oo markii ugu horreysay cunugeeda oo meyd ay aragtay ay soo ag istaagtay waxay noqotay in ay sidoo kale aragtay in islaantaanayti guriga ka kiraysatay wiilkeedii uu geeriyooday waxaa markaa noqday in ay qayladoodii xitaa labadanayti islaan oo qaylinaya diriska ay ku soo baxaan waa la isku yimid waxaa markaasaytii la arkay cunugii oo meyd ah oo musqusha markaa dhex yaala boolisku yaa loo wacay oo si baaritaan halkaanayta uga sameeyaan meydkan ay uga qaadaan boolisku waa ay imaadeen meydkii halkaasaytii ka qaadeen baaritaano iyo markaa ku sameeyeen baaritaanada booliska meydka cunuga ay ku sameeyeen waxaa markaa noqotay in loo sheegay in la dhahay cunuganiiti waa la ceejiyey waqtiga uu dhintayna waxaa markaasaytii u dhexaysaa 8 saac iyo bar duhurnimo ilaa iyo 9 saac waqti ku siman ayaa ugu dhexaysaa sidaasaytii booliska markaa loo soo sheegay booliskuna waxa markaa ay noqotay in baaritaanadooda haddana ay deriska xitaa warwareystaan maalintaasaytii guriga waxa ka dhacay oo kale waxaa markaasaytii loo sheegoo kale waqti duhurnimadii oo kale ay dhacday xitaa guriga in qaylo kale aad ka yeerayso kale alaab sawaxankeeda ay maqlaayeen oo kale waxyaabahaasaytii boolisku sheegeen sidoo kale waxaa markaa ay noqotay in booliskuna si cadaymo dheeri ay u sii raadiyaan in islaamka
cunugaanayti dhashay geeriyooday in ay wareystaan oo ay dhahaan sidee wax markaasayta u dhaceen waxay ku tiri guriga wax aniga aan ka baxay 9 saac iyo bar markii aan ku soo laabtay fiidkina waa uu iga furi waayey heer aan doontay albaabka in furo kale oo ciddii guriga naga kiraysata aan ka soo qaado markii guriga aan soo furana meydkiisa halkan ayaan ku arkay booliskuna waxa markaa ay noqotay in baaritaano kale xitaa markaa ay islaanta ninka guriga iska leh oo maadaama furaha uu soo dhiibtay ay la socoteen inay wareystaan oo ay dhahaan maxaa aragtay meydkaaniitii halkan ku aragnay tiri boolisku si cadeymahaasiitii ay usii xaqiiqsadaan waxa markaa ay noqotay in ay CCTV-ga kaamirada guriga ku xiran in markaasaytii baaritaan ay ku sameeyaan halkaas waxa ay kala kulmeen wax ka duwan waxyaabaha markaasaytii loo sheegayay oo islaanta markaasaytii guriga lagu qabay ay sheegayso cadeymaha sida ay wax u sheegtay waxyaabo kale oo dheeri oo ka duwan yaa markaasaytii kaga soo baxay kaamirada boolisku waxa markaa ay noqotay kaamirada in ay ku arkaan in maalimadaasaytii horta ay islaanta shaqaale u joogtay guriga ay ka fasaxday 8 saac iyo bar waqtiga wiilka uu geeriyoodana waxaa lagu soo cadeeyey in markay u dhaxayso kale maalimadaasaytii 8 saac iyo bar ilaa 9 saac oo kale islaantana waxa guriga ay ka baxday 9 saac iyo bar waqtigaas oo muddo 1 saac oo kale 8 saac iyo bar maadaama shaqaalaha ay baxday ilaa iyo 9 saac iyo bar maadaama ugu dambeys guriga ay ka baxday islaanta guriga lagu qabay muddadaasaytii halkaas saac maadaama cunugii uu geeriyooday labadooda keliya gurigana ay ku sugnaayeen islaanta iyo wiilka ay dhashay boolisku halkaaniiti waxa ay ku noqotay calaamad su'aal in ay isweydiiyaan qaabka sidee wax markaasaytii wax u dhaceen waayo waxyaabaha booliska shakiga aadka ugu weyn ku dhaliyeen waxa markaa ay ahayd in cunugaaniitii loo sheegay in wax la ceejiyey oo sidaasaytii marka uu ku geeriyooday qoortiisana boolisku waxay ku arkeen cunuga in katiinadoo kale markaasaytii lagu ceejiyey boolisku waxa ay weydiiyeen oo islaanta ay ku dhaheen guriga lagu qabay cunugaaga katiinad miyuu xiran jiray waxay ku tiri haa marmar yuu xiran jiray marna waa uu iska dayn jiray boolisku arrintan waa ay nood gareysteen laakiin waxay noqotay xogaa shaki marka in boolisku uu sii galo waxa marka ay weydiiyeen oo booliska ay ku dhaheen okay guriga waxaa ka baxday waqtiga noo sheeg bal 9 saac iyo bar iyo ku tiriyaan guriga aan ka baxay booliskuna waa ay nood gareysteen waxay dhaheen okay waa yahay katiinadii aan u baahanay dhaheen marka oo cunugaaniiti uu xirnaay oo aad sheegayso marna waa u xirtaa aad leedahay marna waa uu iska dhaafaa noo sheegi kartaa waxay ku tiri ma garanayo guriga boolisku ay ka wada baabaadeen katiinadaasaytii waa ay waayeen boolisku waxay ku dhaheen okay katiinadii intuu dhigi karaa is dhigi kartaa oo qoortuu ku xiran jiray ma ogaye tiri oo marmar waan ku arki jiray isagoo xiran marna oo uu iska dhaafaa booliska arrintan haddana shaki kale marka kusii dhalisay in maamadii waqti guriga ay ku wada sugnaayeen iyada iyo wiilkeedii keliya wiilka uu geeriyooday sidoo kale katiinad uu xiran jiray oo waa ku arki jiray ay leedahay haddana ma arkin ay leedahay oo guriga si kastoo looga baaray laga weysan yahay boolisku arrintan waxa markaa ay ku dhalisay in xoogaha su'aalo badan oo isweydiiyaan oo shaki ah maadaama islaanta aysan ku degdegi karin waxa markaa ay noqotay baaritaano intaasaytii ka badan booliskina u sii dhaqaaqaan oo waxyaabo badan markaasaytii isweydiiyaan oo isweydiinayaan yaa ka dambeyn karo kale meydka waxaa markaa dhacday in su'aalo kale haddana marka ay sii weydiiyaan booliska islaantaneeto ay ku dhahaan oo kale cunugaaga xaaladiisoo kale markaa ka waran maalintaasaytii maalmihii ka horreeyoo kale miyaa waxyaabo culays miyaa jiray maya ku tiri anigu cunugayga markaasaytii wax dhiba ma uusan jirin oo kale imtixaanka way dhacday oo kale maalmahaas maalmo ka horreeyo kale imtixaanka inuu ku soo dhacay oo natiijo aan habboonayn uu keensaday waa ay jirtay oo aan ku qayliyey wax kaloo saas ma jiro iyo dhaal arrintaana boolisku waa ay nood gareysteen tan haddana waxaa markaa noqotay in maalinimadaasaytii meydka marka goobta boolisku loogu wacaayay maadaama deriska ay ku soo baxeen qaylada islaantan in ay deriskana su'aalo kale booliska ay weydiiyaan ayaa dhacday oo la weydiiyo kale markaa markii aad goobta timaadeen oo kale dad deriska la warsaday qaabka halkaanid kula kulanteen dadka marka waxay u sheegeen oo booliska ku dhaheen islaanta markay qayliso anaga aan nimid meydka aan aragnay waxa markaasaytii halkaa aan ku aragnay sidoo kale in islaanta markay ku hadaaqayso kale ay leedahay
wiilkaygiiyow maxaa sidaanayta u samaysay, maxaa isku dishay, imtixaanka haddii natiijo aan habboonayn aad keensatay xitaa maxaa markaasayta sidaan inaad samayso ma ahayn oo kale. Arrintan booliska xoogaa shakiya markaa ku dhalisay. Sida maamadanaytii ay cunuganaytii ay sababta uu isku dili karo kale ay arrintaasaytii si degdeg ay ugu tuhunto kale. Boolisku baaritaanadooda waa iska sii wateen waxaana ay noqotay kaamiradaha in ay aad baaritaan ugu sameeyaan guriga iyo hareerihiisa ku degnaay si wax uuna caddayna booliska ay kaga helaan. Waxaana saacad ay tilmaamayso kaamiradu 8 saac ee bar guriga xilligaasaytii ka baxay gabar shaqaala oo guriga ka shaqaynaysay. Waxaana fasaxday islaantan guriga lagu qabay. Waqtiga dhimashada cunuga uu dhintay oo la caddaynaya inay tahay 8 saac iyo bar ilaa 9 saacna waxaa keliya guriga ku sugnaa islaantanaytii guriga lagu qabay iyo cunugeeda keliya guriga ku sugnaa. Waxaan islaanta wareysiga ku bixisay ay sheegtay in xilligaasaytii iyadu markii ay bixaysaba agaareeda xataa uu waqti badan oo saacada musqusha uu ku jiray cunugeeda. Kumana aysan baraarugin oo waxa ay leedahay waa aan ka tegey xilligaas oo aniga 9 saac iyo bar yaa guriga ka baxay. Oo kaamiraduna sidaasaytii markaa tilmaamaysaa abbaaro waqti 9 saac iyo bar in guriga ay ka baxday. Waxaana guriga ku soo laabatay waqti 12 saac iyo 10 daqiiqo camal ah iyo meelaha ku soo laabatay. Oo kaamirada guriga waxa ku hor dhegan xataa waxay tilmaamaysaa guriga hortiisa ilaa iyo qadar 5 daqiiqo oo kale ilaa abbaaro waqti isku samayn guriga ay hortaagneed qof asxaab ay yihiin ee la sheekeysanaysay. Laakiin booliska waxa ay hadallada islaantanaytii ay ugu sahrinayaan in cunugeeda iyada ay dishan wax ay tahay in caddaymo u soo cuskadeen oo kow ay tahay in xilligaasaytii guriga iyadu ay kula sugneed. Sidoo kalena markaa ay leedahay guriga isagoo musqusha waqti badan ku jiraan ka tagay. Boolisku waxa ay leeyihiin waxay tahay see kaga tagi kartaa oo macquul ay ku tahay qof guriga kula joogo waqti badanna musqusha ku jiray xitaa in aad iska baxdo oo aad ka warqabin si ku dhici kartaa. Midda labaad ee kaga shakiyana waxa ay tahay waqtiga warbixinta ay u soo sheegtay booliska islaantan in cunuga ay geeriyooday waqti dheer xoogaha markaa inay tahay oo waqti markaasaytii ka soo wareegatay. Waxa kaloo haddana booliska markaa ay sidoo kale u cuskadeen waxa ay tahay in ay ku hadaaqayso hadalka markaa ay deriska ka soo sheegeen sababta cunugeeda u geeriyoodo tuhunida ay dhahaysay imtixaanka dartiis waaye. Boolisku marka waxa ay ku noqotay calaamad su'aal tanna ay ku dhaheen sidee markaa islaantanaytii ku ogaatay sababta cunugeedu isku dilay oo arrintanaytii imtixaanta ugu saarinaysaa. Sidoo kale haddana boolisku waxa ay u sii cuskadeen bo sabab kale oo ay ku leeyihiin islaantan iyada mas'uuliyadda leh in katiinada lagu ceejiyay maadaama katiinad calaamadeeda dhaawac qoorta ay kaga sawirneyd oo ay weydiiyeen marna wuu xiran jiray marna wuu iska dhaafi jiray ay tiri in katiinadii gebi ahaanba guriga laga waayana booliska tuhno kale ayaa markaa ku dhalisay islaantanaytii ma arkin ay soo istaagtay. 11kii bishii 3aad 2025 islaantanaytii waa la soo xiray iyadoo cadeymaha idin loo cuskanayo. Waxaana markaa socdo baaritaano in weli kiiskanaytii caddayn in warbixin ugu dambeysa laga soo saaro. Dhanka ninka islaantanaytii qaban waxa uu leeyahay ma filaayo aniga islaantaydu in ay cunugeeda dilayso maadaama waqti dheer xitaa uurkiisa aan sugeynay oo in cunuga sayta uu dunida noogu soo biiro ma filaayo in hooyo arxan darno sidaas ay noqonayso. Laakiin boolisku waxa haatan cadeymaha ay soo aruuriyeen ay leeyihiin anaga mas'uuliyadda waxaan ku tuhmeynaa in islaantanaytii ay ka dambeyso. Dhanka faallada noogu reeb ma aaminsan tahay in islaantan adigoo cadeymaha waxyaabaha laga soo bandhigo u fiirinayo in sabab mas'uuliyad ay qaadan karto in cunugeedii ay dishay. Qaybta faallada aragtidaada noogu dhaaf. Waad ku maasan tahay ilaa iyo dhammaadka haddii aan nala soo gaartay haddii qisooyinka sidaan oo kalena aad jeclaysanayso fadlan nagu taageer in muuqaalkanaytii aa like gareyso siina share gareyso si bulsho badan aanu sii gaarno. Waad ku maasan tahay haddii channelka aad ku xiran tahay haddii aadan ku xirnayn waan rajeynayaa in muuqaalada sidaan oo kale maadaama aad xiiseyn karayso in ilaa heerkan dhammaadka haddii nala soo gaartay channelka aad ku soo biirto. Mar kale waad ku maasan tahay waqtiga aad ku bixinayso daawashada muuqaalkan muuqaalkii inaga ayay noo balana.